safiirka dowladda qatar u fadhiya Itoobiya iyo midowga Afrika Ahmed Mohamed Al-Dawsari ayaa la kulmay safiirka Jamhuuriyadda Soomaaliland u fadhiya Itoobiya Maxamed Axmed Cawad. Safaaradda Qatar ay ku leedahay Itoobiya ayaa barteeda Twitterka ku baahisay fariin ay ku qirayso dowladnimada Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaana qoraalkan lagu yidhi safiirka dowladda Qatar u fadhiya Itoobiya iyo midowga Afrika Ahmed Mohamed Al-Dawsari waxa uu la kulmay safiirka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Itoobiya Maxamed Axmed Cawad, waxaana laga wada hadlay danaha guud iyo sidii loo horumarin lahaa. Talaabadan ayaa muujinaysa in dowladda Qatar oo kamid ah dalalka taageera wadankaasi Soomaaliya ee ka soo horjeeda qadiyadda iyo madaxbannaanida Soomaaliland ayaa waxa ay wax ka bedeshay siyaasadeedii ku raacnayd ee ku wajahnayd inay si indho la'aan ah uga soo horjeesato Jamhuuriyadda Soomaaliland. arrintan ayaa noqonaysa guul u soo hoyatay Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxa aanay qayb ka noqonaysaa horumarka Soomaaliland ay markasta ku rajaynayso in caalamku ay aqoonsi buuxda ka hesho. tanina waxa ay qayb ka noqonaysaa horumarka siyaasadda arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. talaabadan ayaa muujinaysa isku soo dhawaansho rasmi ah oo dhexmara dowladda Qatar iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland. dowladda Qatar ayaa iyaduna u muuqata mid ka faa'iideysanaysa waqti xaadirkan siyaasadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. dhanka kalena safiirka Jamhuuriyadda Soomaaliland u fadhiya dalka Itoobiya Ambassador Maxamed Axmed Cawad ayaa qoraal ku baahiyay bartiisa Facebook waxa uu yidhi farxad ayay ahayd in aan kulan midho ah la qaato danjiraha dowladda Qatar u qaabilsan dalka Itoobiya iyo midowga Afrika Ambassador Ahmed Mohamed Al-Dawsari anaga oo ka wada hadalnay buu yidhi danaha labada dowladood ee Soomaaliland iyo Qatar iyo sidii kor loogu qaadi lahaa xiriirka labada dowladood iyo sidii dowladda dalka Qatar iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland ay iska kaashan lahaayeen dhinacyada dhaqaalaha iyo horumarka. Soomaaliland waxay markaas diyaar u tahay buu yidhi safiirka Soomaaliland u fadhiya Itoobiya in ay qadiyadeeda ay gaarsiiso dal kasta oo dunida ah, waana dadaalkayga koowaad ka dowlad ahaan ayuu yidhi safiirka Jamhuuriyadda Soomaaliland u fadhiya dalkaasi Itoobiya Maxamed Axmed Cawad. waa Khadar Maxamed Maxamuud Khadar Quule, telefishinka qaranka Soomaaliland, magaalada Hargeysa.